golaha wadatashiga qaran ayaa la filayaa inay bari soo afjaraan shir dhowr maalmood uga socday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa maalmo badan shirku u xayirnaa kadib markii uu miiska keenay dalab ku aadan in lagu wareejiyo amniga guud ee dalka. Laakiin si walbaba waa la isku mari waayay qodobkaas. Inkastoo golahan uusan wareejin karin amniga qaranka waxna aanay gacanta ugu jirin, haddana goluhu waa isku raaci waayay inuu soo jeediyo dalab noocaas ah oo warmurtiyeedka lagu xuso in Rooble lagu wareejiyo amniga guud ee dalka. qodobkan waxaa looga gudbay in AMISOM ay kaalin muuqato ku yeelato amniga labada xafiis ee madaxweynaha iyo midka ra'iisul wasaaraha, iyo weliba in ciidanka loogu baaqo inay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda. arrinta guudiyada waxay dhinacyadu isla qaateen in sidooda loo aqbalo isbeddelkii uu ra'iisul wasaare Rooble ku sameeyay guudiyada, gaar ahaan guddiga xalinta khilaafaadka oo uu Rooble ka eriyay 7 xubnood kuna beddelay 7 kale. waxaa arrintaas heshay in 7 xubnood ee uu Rooble beddelay inay dhammaan ahaayeen kuwii markii horeba ka yimid dhanka xukuumadda. xilka qaadistii gudoomiyaha guddiga doorashada ee FID ayaa iyadana la sheegay inay goluhu aqbaleen, waxayna isla qaateen in guddigaasi loo madax banneeyo inuu doorto gudoomiye cusub. laakiin waxaa la adkaynayaa sida hadda kadib isbeddel loogu samayn karo xubnaha guddiyada iyo cidda awoodda u leh. qodobka habraaca goluhu waxaa la sheegay inay wax badan dul istaageen qodobkan muhiimka ah. waxyaabaha isla qaateen waxaa ka mid ah in la shaaciyo kursi walba xubnaha 5 ah ee soo xulaya ergadiisa, in ergada laga dhaafo lacagaha CID-da iyo midda COVID-ka, in musharaxa buuxiya shuruudda kursi walba inaan laga hor istaagin tartanka, iyo in doorashada si daahfuran loo soo tabiyo. qodobka kuraastii la isku haystay golaha waxaa la sheegay inuusan xoog badan gelin qodobkan. waxaa jirta aragti sheegaysa in maamuladu aanay muhiim u arkin qayladhaantii dhacday maalmihii la soo dhaafay iyo kuraastii la soo xoogay. qodobkan waxay u badan tahay in sidiisa looga gudbo, taas oo ka dhigan inay sidaas sax ku yihiin kursiga Mahdi Guuleed, kursiga Yaasiin Faray iyo kursiga Sareedo. sidoo kale waxay ka dhigan tahay inuu Jawaari sidaasi ku dhaafi doono kursigiisii. ilaha shirku waxay sheegayaan inuusan jirin qof si gaar ah qodobkan ugu dheggan oo dan u arka in lagu laabto kuraastaas. maadaama ra'iisul wasaare Rooble laga aqbalay isbeddelkiisa guddiga xalinta, kuraastii gudubtay isna waqti badan iskama gelin. arrinta jadwalka doorashada madaxda maamulada iyo ra'iisul wasaaruhu waxay dhowr jeer shaaciyeen jadwal doorasho, laakiin ma uusan shaqaynin. haddana waxaa doodaha miiska u saaran ka mid ah jadwal cusub oo lagu soo gunaanadayo doorashada golaha shacabka. 2 muddo ayaa miiska saaran. xubnaha qaar waxay qabaan in 40 cisho lagu soo dhammeeyo doorashada golaha shacabka, qaarna waxay qabaan in lagu soo afjaro 60 cisho. qodobadaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha ay goluhu isla soo dhoweeyeen oo caawa lagu kala seexday. berri waxa la sugayo waa gunaanad iyo warmurtiyeedkii haddii aanay dhinacyada qaar dib uga guran qodobadii lagu ballamay sida ay marar badan sameeyeen madaxda Soomaalidu. berri wixii ka dambeeya waxaa la rajaynayaa inuu dalku toos u aado doorasho, iyadoo dhinaca kale weli taagan yahay khilaafkii Farmaajo iyo Rooble. maxay kula taadiga